السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي على سoo dhawaada magacaygu waa Cabdulle Abukar halkan waxaa idinkula wadaagaa barnaamijyo la xiriira dhaqankeena Soomaaliyeed iyo sidoo kale arrimaha bulshada maanta waxaan doonayay inaan u weecdo dhankii arrimaha bulshada horey waxaan idinkula wadaagay arrimaha dhaqanka qayb ka mid ah oo yar oo maamaahda ah ilaa 3 qaybood aan ka qaadanay kuwa kalena inoo soo socdaan insha Allah tacaala maanta waxaan rabay in aan halkan idinkula wadaago talooyin la xiriira dhalinyarada Soomaaliyeed isla markaana aan haday qofka uu sameeyo wax badan iska bedeli doonaan insha Allah tacaala qodobka koobaad waxa uu yahay number 1 qofka dhalinyarada ah ee maanta jooga casrigan in uu wax barto qodobka koobaad waxbarashadu waxay ku keenaysaa fursado in aad hal abuur sameyso in aad maxaa leedahay dadka aad wax la qaybsato laakiin qof aan waxba aqoonin maanta adduunka waxa uu ka keenayo ayaa waxay tahay waxya Soomaaliya markay tahayna maxaa leedahay in aad wax barato maanta hadba dalku dhibaatooyin waxba iska jiraan laakiin way sii wanaagsanayaan sanadba ka dambeeyo marka waxa laga doonayaa in aad wax barato haddii aadan waxba aqoonin way qofkii wax bartayna in uu waxbarashadiisa uu sii siyaadiyo oo wax sii barto sidoo kale qarnigan maanta lagu jiro waxa laga rabaa inaad tiknoolajiyada wax badan aad ka taqaano haddii aadan tiknoolajiyada wax ka aqoon idan waa carqalad aad u weyn oo maanta maxaa leedahay wax badan dhibaato ku keenayso waxay ku siinaysaa fursado aad wax ku abuurto ama aad kula socoto dunida sidoo kale haddii aadan aqoonin maanta isticmaalkii tiknoolajiyadaas kala duwanayay waxa kugu imaanayo inaad maxaa leedahay wax badan aadan xeerinin isla markaana ay dhibaato xoogan ka soo food saarto sidii aad u isticmaali laheeday waxaad garan kartaa qof aan maanta aan si wax loo baaran ka siin inuu dhibaato xoogan ku sugan yahay qodobka xiga wuxuu yahay akhyaaray in aad wax ka barato dadkaaga dalkaada iyo diintaada maadaama aan dad islaam nahay in diinta wax ka barano dadkaada aad kala barato meelaha kala degaan gobolada sidii dadku loo kala tago waxyaabo badan aad wax ka barato sidoo kale dalkaadana aad barato oo aad meesha maxaa leedahay hadba gobolada sidii u kala maxaa leedahay u kala khayraad badan yihiin gobolada wabiyada leh gobolada badaha leh in aad on wax uun ka sheegi karto maanta qof ajnabi uu yiraahdo dalka Soomaaliya wax iga sheeg inaad wax ka sheegi karto qof dalkiisa aan aqoonin ceeb weyn ayay noqonaysaa inkastoo fili gooniya oo la barta ay tahay sidoo kale qodobka saddexaad waxa weeyaan inaad maanta shaqo aad raadiso waxa ay tahay muhiim shaqadaasi waxay noqoto shaqo aanan dembi ahaynin ayaa laga doonaya inaad mar walba aad raadiso shaqooyinku aad qofka aanan shaqaynaynin wuxuu ku sugan yahay asigana dhibaato xoogan ayuu ku sugan yahay qofkaas hadduu shaqaynayo wuxuu helayaa maxaa leedahay wax hami buu helayaa uu kusii socdo laakiinse qof aanan shaqaynaynin maanta guri kasoo kacayo haddana jeefanayo wax uu qabanayo waa iska yaraanaya sidoo kale aqoonta caadiga ah inaad barato iyo inaad xirfad barato knowledge iyo skills baa kala yiraahdaa haddii aadan aqoontii caadiga ahayd aadan garanaynin ama aqoonta maxaa leedahay formal iyo informal ayaa loo kala qaybiyaa haddii aadan marka aadan waxbarasho asaasi soo dhiganin waxaa mar walba la raadiyaa inaad barato waxbarasho maxaa leedahay skills ah xirfadii gacanta tira ka badan maxaa leedahay haday noqon lahayd kawaaridii wadisteedii aqoon kuma xirno inta badan haday noqon lahayd maxaa leedahay harqaanka haday noqon lahayd majarista xirfadaas marka waxay ku yeelanaysaa inaad meel ku gaarto oo aadan maxaa leedahay qofna aadan toogin haddaad aqoontii kale aad wax ku weyso xirfadaadna wax ku weynin sidoo kale waa inaad yeelataa himilo dheer qofka duusan himilo lahaynin uusan maxaa leedahay wax uu yool ah uusan lahaynin dhibaato xoogan weeyaan qofba inuu guursada aan rabin oo magaalkiisa iska jooga rabo qofba wuxuu rabay inuu san maxaa leedahay shaqo taas oo san qabanin qofba wuxuu doonaya inuu adiga isaga dhex jiro nolol qiyaali ah taasina idan waxay ka qayb qaadanaysaa inay dhibaato xoogan ka soo gaarto sidoo kale qofku waa in uu yeeshaa adkaysi iyo maxaa leedahay isku filnaasho ama inuu maxaa leedahay qofku mar walba iskaalme ama maxaa leedahay isku filnaasho inuu qofku sameeyo marka adduunka joogtid waxaad la kulmaysaa dhibaatooyin kala duwan jaranjarooyin kala duwan aad koraysaa marka aad dhalinyaro tahayna kuma sii jirtaba aydan taas inaad meel fiican aad ka gaarto aad si fiican aad isaga adkayso
oo adkaysigaasi oo mar walba noqdo mid adiga maxaa la dhahay himiladaadii inaad gaarto oo maxaa la dhahay kuu keenayo. sidoo kale qofku waa in uu sameeyaa ama uu samaystaa dad wanaagsan inuu la saaxiibo. dadka wanaagsani waxa ay ku horseedaan in aad maxaa la dhahay gudaha u gasho waxyaabo kale oo wanaagsan. laakiin dad dhibaato ku jiro, dad qayilayo, dad maxaa la dhahay dhibaato kale isaga jiro inaad dhex gasho kulitaba waxa weeyaan waxa la diriskaada kuma cadayo kuma madoobeeyo sidii ka dhigayaan. marka qodobadaas iyo kuwa kale ka fara badan bay way jiraan aqyaaray. marka intaas baa kusoo koobaya inaad nagu soo birtaan rajayna insha allahu tacaala. waqtigu haydii wacnaado. channelka hadda waxaa noogu xiran 3 qofood in badanoo kale inay kusoo biiri doonto rajaynaya. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.